Diyaar Garowga Xuska maalinta 1 agoosto oo xilligii la aasaasay Puntland ayaa magaalada caasimadda u ahay Puntland ee Garowe si aad looga dareemaya. waxaana ciidamada qalabka sida ee Puntland gaad ciyaar ay isugu diyaarinayaan xuska maalintaas ku soo bandhigeen magaalada Garowe. halkan waa garoonka kubadda cagta ee Mirawaare waxaana isugu soo baxay shacabka ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay caasimaddu. waxayna iyaga laftirkoodu ka qayb qaadanayaan diyaar garowga lagu jiro xuska maalintaas oo ah maalintii la aasaasay Puntland oo ay ka soo wareegtay 21 sano. sida la sheegay sanadkan xusku waa ka duwanaan doona qaababkii loo xusi jiray sanadihii hore. ciidamada booliiska iyo guud ahaan dawladda Puntland ay isu diyaarinayso 1 August waxa weeye ciidanka booliiska si fiican ayuu rabaa inuu uga qayb qaato noocyadiisa kala duwan iyaga oo si fiican raba inay u gaartiyaan si fiican inay u muujiyaan astaanta Puntland ee sanad guurada 1 August waxa weeye ciidanka booliiska qayb lixaad loo rabaa arrinta inuu ka qaato. kadib markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa Jaale Maxamed Siyaad Barre sanadii 1998 dadkii deganaa gobolladii waqooyi bari Soomaaliya intii ay isku tashteen ayay aasaasteen maamul la magac baxay Puntland. waxaana maalmo kooban naga xiga markii ay u dabaaldegi doonaan 21 sano guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulkaas. waa Abdullaahi Bakayle wararka telefishinka caalamiga Real TV magaalada Garowe.